kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah guddiga doorashooyinka heer federaal oo maamul goboleedyada dalka ka jira ka dalbaday in si degdeg ah u bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo qayb kamid ah ay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maamulka galmudug iyo saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya oo wada abaabulkii ugu dambeeyay ee lagu doonay in lagu soo gabagabeeyo xogaga Al-Sunna oo xilligan isku urursanay deegaan duleedka ka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qaar kamid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo waayay ballanqaad lacageed oo ay ka heleen markii hore dawladaha Carbeed kuna qasbanaaday inay iskaga haraan tartanka loogu jiro kursiga ugu sarreeya dalka iyo dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka xilli doorashada Soomaaliya ay marayso meel xasaasiya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka dhameystiran waa 2 bisha 11 sanada 2021 hadii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay channelkeena haylaawna subscribe tiraado kadibna aad furtid calaamada gambaleelka si ay ku soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay guddiga doorashooyinka ayaa maamulada dalka ka jira waxay ka dalbadeen in si dhaqso ah u bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa war ay soo saareen waxay ku bogaadiyeen bilaabashada doorashada golaha shacabka oo shalayta lagu doortay labadii kursi ee ugu horeysay magaalada Muqdisho kuwaas oo noqday shakhsiyaadka ugu horeeyay baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka ayaa waxay u mahad celiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo dadaal xoogan geliyay qabsoomidda doorashada golaha shacabka sidoo kale waxay u mahad celiyeen guddiga maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi kuwaas oo si habsami leh kaga shaqeeyay in doorashada ay noqoto mid xor iyo xalaal isla markaana ka dhacda magaalada Muqdisho sidoo kale guddigan ayaa waxay ugu baaqeen madaxda dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga maamulaya kuraasta beelaha banaadiriga in ay bilaabaan doorashada golaha shacabka si looga gudbo marxaladda kala guurka ee dalku ku jiro madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ayaa xilligan waxay ku mashquulsan yihiin sidii ay u bilaabi lahaayeen doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay kaga bilaabi lahaayeen xarumahooda waxaa jirta cabasho ay soo gudbiyeen madaxda maamul goboleedyada qaarkood kuwaas oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uusan ka jawaabin ilaa iyo hadda cabashadaas ayaana waxay ahayd in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay sheegeen in dhaqaalaha iyo amniga uusan saamixeen in laba magaalo lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxayna taas beddelkeeda ra'iisul wasaare Roble ka dalbadeen in lagu qabto hal magaalo oo kamid ah xarumaha maamul goboleedyada gaar ahaan magaalada caasimadda u ah maamul kasta dawladda Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa markii hore waxay ku heshiiyeen in doorashada xildhibaanada golaha shacabka lagu qabto laba magaalo oo kamid ah xarumaha maamul goboleedyada waxaana xilligan jira culays kale oo ay dareemayaan madaxda maamul goboleedyada inkastoo codsiyadooda uusan ka jawaabin ra'iisul wasaare Roble taas ayaana waxay keentay in cabsida ah in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay mar kale dib u dhacdo xilligan waxaa socda dadaaladii ugu dambeeyay ay wadaan qaar kamid ah xubnaha madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda waxaana dadaaladaas ay yihiin kuwa lagu doonayay in lagu gaaro doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya midii ugu horeysay maadaama ay ka bilaabatay caasimadda saraakiisha ciidamada dawladda iyo maamulka galmudug ayaa abaabul dagaal ka wada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa isku diyaarinaya dagaal culus oo ay ku qaadaan deegaanka Bohol oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xogaga Al-Sunna kuwaas oo laga soo saaray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud xogaga Al-Sunna ayaa maalmo waxay kula dagaalamayeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ciidanka militariga Soomaaliya oo kaashanaya daraawiishta galmudug waxaana ugu dambeyntii suurto gashay in banaanka looga saaro magaalada xogaga Al-Sunna maadaama ciidamada dawladda Soomaaliya ay qaadayeen dagaalo dhowr jiha kuwaas oo keenay in Al-Sunna looga itaal roonaado dagaalka waqtigaas wixii ka dambeeyay xogaga Al-Sunna waxay isku urursanayeen deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud waxaana la sheegay deegaankaas in uu noqday xarunta ugu weyn ee Al-Sunna ay leedahay ee ku taalla gobolada dhexe saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale ciidamada galmudug madaxdooda maamulka galmudug hogaankooda iyo sidoo kale hogaanka Al-Sunna ayaa la sheegay in wada hadallo maalmihii ugu dambeeyay ay u socdeen waxaana wada hadalladaas garwadeenka ahaa ganacsato iyo sidoo kale waxgarad ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka ugu dambeyntii wada hadalladaas ayaa la sheegay in guul darro ay ku soo dhamaadeen kadib markii
markii xoogaga Ahlusunna ay diideen in ay hubka dhigaan oo ay ka mid noqdaan shacabka isla markaana la sheegay inay dalbadeen taas bedelkeeda in ciidankoodu uu ahaado ciidan gooni u taagan sidoo kalena hogaankoodu uu ahaado hogaan iyaga ay u madax bannaan yihiin madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaana la sheegay in arrintaas uu gaashaanka u dururo waxaana iskaga soo tegay deegaanka Bohol odayaashii loo diray oo ahaa in ay nabad ka keenaan Ahlusunna sidoo kalena ay soo wareejiyaan hubka iyo dhalinyarada halkaas ay ku ururinayeen xilligan waxaa dhuusamareeb ka socda abaabul dagaal oo ay wadaan Galmudug iyo sidoo kale ciidanka militariga Soomaaliya waxaana laga cabsi qabaa in dagaalkii Ahlusunna ay ku gashay Gurceel mid lamid ah ay ku galaan deegaanka Bohol kaas oo waxyeello xoog la gaarsiiyay dadka shacabka ee ku dhaqnaa Gurceel iyo kuwii ka barakacay oo duleedyada Gurceel ay kula dhaceen hoobiyaashii laga tuuray bartamaha magaalada xilligan ma jirto wax wada hadal iyo waanwaan oo labada dhinac u socda maadaama la sheegay in ay guuldareysteen odayaashii loo diray oo ku aadanaa in ay nabad ka keenaan sidoo kalena deegaankaas ay iskaga baxaan xoogaga Ahlusunna shacabka ku dhaqan deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud ayaa waxay dareemayaan xilligan cabsi aad u xoogan oo ku aadan in korkooda ay ku dagaalamaan ciidanka dawladda Soomaaliya oo garabsanaya daraawiishta Galmudug iyo xoogaga Ahlusunna oo dhawaantan isku urursanaya deegaanka waxaana jira odayaasha dhaqanka oo wali aanan ka rajo dhigin Ahlusunna inay xal nabadeed ka keenaan isla markaana deegaanka si nabad ay kaga baxaan gaadiidkii dagaalka ee ugu badnaa iyo ciidamadii Ahlusunna ayaa waxay ku sugan yihiin deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud waxaana la sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay wadeen saacadii ugu dambeeyay kuwaas oo ay kaga goleeyeen iskaga caabiyaan ciidanka dawladda Soomaaliya haddii weerar ay ku soo qaadaan deegaanka ciidamada daraawiishta Galmudug iyo militariga Soomaaliya ayaana waxa kaliya ay sugayaan ay tahay amarka madaxweynaha Galmudug oo ku aadan in gabi ahaanba ay ka taqalusaan hogaanka Ahlusunna oo ay weeraraan deegaanka Bohol xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qaarkood wada qorshayaal ay iskaga tanaazulayaan u tartanka kursiga ugu sarreeya ee dalka sida ay noo xaqiijiyeen dad aad ugu dhow xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa jira xubno badan oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo dhaqaale xumo soo wajahda aawadeed iskaga tanaazulaya inay u tartamaan kursiga ugu sarreeya dalka waxaa jira ballanqaadyo kala duwan oo ay u sameynayeen dawlado shisheeye xubnahan ballanqaadyadaas oo ahaa in doorashada Soomaaliya ay ka taageeri doonaan dhaqaalaha ku baxaya isla markaana shakhsi walba ay dawlad gaar ah markii hore ballanqaad xoog leh u sameysay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa lahaa niyad aad u ballaaran oo ku aadan in ay qaban karaan hogaanka ugu sarreeya dalka isla markaana xildhibaanada ay ku soo jiidan karaan lacagaha waalida ay u ballanqaadeen dawladaha Carbeed kuwaas oo xiriir dawlad lahaa xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka xubno badan oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la sheegay inay ka niyad jabeen in dhaqaale ay ka helaan dawladaha Carbeed kuwaas oo il gaar ah ku haya xaaladda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeysay siyaasadda Soomaaliya lug weyn ku lahaa waxaa la sheegay in xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood xilligan ay wajahayaan dhaqaale xumo aad u baasan waxaana la tilmaamay in qaar ka mid ah xarumahooda ay ku shaqayn jireen oo gaarka ay u lahaayeen albaabada loo laabay waxaa jira xubno badan oo ilaa iyo hadda aanan shaacin inay isaga hareen tartankaas laakiin la sheegay in xarumahoodii albaabada loo laabay iyagana ay iskaga tanaazuleen inay u tartamaan kursiga ugu sarreeya dalka taas bedelkeedana wadamada dariska la sheegay inay ku sii jeedaan wadamo badan oo Carbeed ayaa dhabarka ka toogtay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxaana la sheegay in dawladaha Carbeed qaarkood ay ka niyad jabeen xaaladda Soomaaliya iyo siyaasadeeda halka ay marayso arrimaha doorashooyinka waxaa jira warar kale oo sheegaya in dawladda Mareykanka ay ku cadaadinayso xubnahaas in aanan lagu taageerin inay ku soo baxaan doorashada dalka sidoo kalena lacagaha dawladaha Carbeed ay geenayeen Soomaaliya la xadiday xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxay markii hore eeganayeen oo ay ku tashanayeen in dhaqaalaha ugu badan ay ka heli doonaan wadamo Carbeed kuwaas oo saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya laakiin muddooyinkii ugu dambeysay ayaa rajadoodu waxay noqotay mid guuldareysatay waxaana la sheegay ilaa ay hadda qaarkood in ay weli rajo ka qabaan ballanqaadkii loo sameeyay oo ku aadana in ay heli doonaan kursiga ugu sarreeya dalka lacaga waaliyana ay ku bixin doonaan dawladaha Carbeed ugu dambeynna dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa ka wada hadlay doorashada dalka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa kulan ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu la qaatay siihayaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya kulankan ayaa waxaa looga hadlay intii uu socday xoojinta xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga si la mid ah horumarka laga gaaray amniga iyo siyaasadda sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya kulankan ayaa la iskula eegay xaaladihii ugu dambeeyay ee dunida iyo sidoo kale gobolka sidoo kalena arrimaha doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo u diyaar garowga qabsoomida doorashada madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa siihayaha safiirka Mareykanka warbixin guud ka siiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee dalka ka dhacaya dawladda Mareykanka ayaa waxay ka mid tahay dawladaha sida aadka ula socda xaaladda Soomaaliya iyo halka ay marayso gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaana dhawaanahan jira shaki aad weyn oo ku aadan in doorashada dalka aysan ku dhici doonin waqtigeeda
inkastoo lagu gudagalay doorashada aqalka sare kadibna loo jeestay doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo qayb ka mid ah doorashadu ay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ahayd mid ka walaacsaneed xaaladda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaana mar walba Mareykanku uu ka digaa in dagaalo sokeeye dalku uu galo kaas oo mar kale ku celin kara marxaladii dagaalada ee Soomaaliya ay soo martay waayihii la ogaana dhibaatada soo marsiyay shacabka Soomaaliyeed madaxda dawladda Soomaaliya ugu horeeyay ra'iisul wasaare Roble ayaa si weyn xilligan iskugu diyaarinaya qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaana xigi doonta midda madaxweynaha oo ah midda aadka loo wada sugayay isla markaana xilligan ay jiraan shakhsiyaad badan oo rajo weyn ka leh intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen janalka wararka maanta waad ku mahadsantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina wixii aragtiyood noo haysaana noogu raaba qaybta hoose ee kommentiga